بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت هشيس كاسي وحنكم مقلون وربحينته هشيس عن حكوجة أما تلذي ضحولها مو هين مركي عن أفير سدي يعني أجي هشيس كاسينا وحها هشيس عن وح قضباء أم وح لك على الصحة أم وح قرالي أنا شرين nimankii hadlaayeen waxaan maqlaayay iyaga oo kala hadlaya oo mid walba uu meel ku dhufanayo oo uu leeyahay arrinkaasa ku heshiinay arrinkaasaan ku heshiinay marka sida dadku laftirkooda caadiga ay u wareereen ugu jaah wareereen ayuu banaanuuna ugu jaah wareeray heshiiska la sheegayo ee la gaaray oo dadkii meesha joogay uu qof meel si u sharaxay mid yiraahdo hal qodob baa bay macaaridku ka cabanayeen oo macaaridkiina waanu saxnay mid yiraahdaa madaxweynaha ka daba geynaya laba qodob heshiiskii qoobiyo qoraalka ah horta waa ogtihiin oo heshiis hore jiray heshiis saddexda xisbi kala saxeexdeen qaran madaxweynuhuna uu confirm gareeyay beesha caalamkuna ay marxaati nooga ahayd ayaa jiray bariyahan dambe anagu heshiiskaas un baan culayska saarinay in la kala saxeexo heshiiskaas wuxuu ahaa in labada diiwaan galinood ay dual track noqdaan oo ay isbarbar socdaan shalay toosay nimankii u hadlayeen heshiiska ka hadlayeen wala wax clear ah kuma yahayn anu qodobadii iyo wixii lagu heshiiyay wali ma hayo maan arag waxna waa wax marka hadii wax hore lagu heshiiyay oo wax laga bedelayo xisbiyadu in dib isugu noqdaan oo ay dib u eegaan oo ay yiraahdaan gudiyadooda fulintu fariistaan oo la isku wada raaco halkii majority-ga raacdo si dimuqraadiyadda ay u hirgasho weeyaan haddii la yiraahdo markaan aragno waxay yihiin leeyahay waa lagu heshiiyay haddii ay wax macquul ah nooga muuqdaan waanu taageeri haddii ay noola muuqdaan wax aan macquul ahayn ganafkan ku dhufanayna sababta ummadda Soomaaliland la jahwareeyay maaha diiwaangelintan laftirkeeda madaniga ah ayaan dhowr jeer ka hadalay in carqalado badan ay ku jiraan xukuumaddan ay ka dhagaaday heshiiskaasi shalay tilmaamay ku jirtay iyo in kaleeto kala garanmayno 200 goobood bay gebigoodaba ka dhigeen halka tii hore diiwaangelintii noogu dambeysay ee dadkeenu ay galeen ahayd 1800 oo goobood ay ahayd oo ay nagu yareed waliba weynogno sida loo kala qaybiyay xataa beelo badan baa cabanay the building wixii dadka lagu jahwareeriyay ayron la iska talaalay waa la heshiiyay dadkana aan loo sheegin exactly wixii lagu heshiiyay waxa uu ekaanaysa qeyr mas'uulnimo iyo jahwareer ayuu ekaanaysa dadkoo dhanna waa inay talada ay ka mid noqdaan oo la isla wada ogaado waxaan oo dhan oo waxna wax sax ah inay inoo yihiin aynu ogaano beeshii caalamka ayaa ina daawanaysa midda kaleeto anigu runtii shakhsi ahaan kalsooni yar baan ka qabaa waxay xukuumaddu ku heshiiso inay hirgeliso xukuumaddu dhowr jeer ayay heshiisay la gashay xisbiyada macaaridka dhowr jeer babalama loo qabtay lagaga baxay dhowr jeer ba heshiis loo galay laga baxay inaan ayron intaan shacabka u tubno oo ilaahno anagu wixii hore ayro dhacay ay noqoto xaalku shimbirayo heesa noqon mayso waa in marka hore waxaan wax macquul ah oo ummadda cuntamaya ay ahaadaan oo ku salaysan heshiiskaygii horeeto haddii aanu heshiiskaygii hore ku salaysnayn waxay noqonaysaa markaa inaan anagu ka soo horjeesano oo aan taageerayaasheeda sidii aan hore uga soo horjeesano baan uga soo horjeesano waxa weeyaan in la carqaladeeyo doorashada codbixiyaasha maaha diiwaangelinta codbixiyaasha maaha taasi weligeedba mid ka madax bannaan bay ahayd imika waxa weeye waxa dhamaanaysa September in gudaha lagaga jiraa baad anagu waxaan u aragnaa waxaan oo dhan actionskan ay xukuumadda sameynayso inay ku carqaladeynayso doorashooyinka inay doonayso inay kordhisato oo dib ugu dhigto xisbiyada mucaaradkana dhamaaha inay shacabka u tumaan oo ku taageeraan in loo kordhiyo xukuumadda xaq daro lagu kordhiyo xukuumaddu madaxweynuhu waa kii maalin la igu dari maayo bal inuu taa ka dhabeeyay in kala shacabka Soomaaliland ayaa u fadhiya oo daawanaya oo eegaya tamida kaleeto qaran baynu nahay dimuqraadiyad qaatay dimuqraadiyadna in sideeda loo filiyo ay ku habboon tahay heshiisyada qaarkoodna in qol madow la gala maaha waa inay waadax noqdaan oo cadaadaan oo qornaadaan oo ay waxaan yihiin wax la isla wada og yahay lagu wada kalsoon yahay oo ay yihiin wax wada soconaya haddii kale ma shaqeynayaan haddii ay wax
cid gaar ah ayarun iska faramarsato wax shaqeynaya maaha marka waxaan leeyahay in xukuumadda war heshiisyo hore ay xisbiyada qaranka la gashay heshiisyadiina qowlkiina qarankiina ixtiraama gudoomiyayaasha mucaaradkana waxaan leeyahay ummaddu waxay nooga fadhidaa mucaaradad adag micnaheedu maaha in dawladda wixii wax kasto aan ku diidno wixii fiicanna waa inaan ku raacnaa wixii qalad aan arkayna waa inaan ku raacnaa laakiin haddii laynoo arko niman sal fudud oo ayar uun wax walba qaadanaya dee ummadda waynu jaawareerinaynaa oo waynu waalaynaa mar walba marka anagu taasan aan ku soo gabagabeynaya haddii la yidhaahdo